horta run ahaantii response-ka ama xaaladdu aad bay boqolkiiba boqol imanka sidii hore uga soo wanaagsan tahay markii hore beeshinada cusbitaalka yaalay 300 ilaa 400 bay hayeen dorratole waxa yaalay 140 shalayna waxa yaalay 115 maantana beeshinadu intii hore aad bay uga yariyeen marka xaaladdu boqolkiiba boqol aad bay u soo caafimaadaysaa waayo mar walba qoladeedaasi aad baan iska warhaynaa cusbitaalku wuxuu ka kooban yahay had iyo jeer 5 ward iyo emergency-ga 5 ward ba 5 dhakhtar baa ku kala qoran wixii response ee ka imaada ma isbedel ka imaadana yani qof walba meeting buu ka sheegaa waxa ku soo kordhay waxa kale wixii admission ay soo galitaan iyo wixii bixitaan kulli waan ka warhayaa waana jooga qaybta emergency-ga marka boqolkiiba boqol aad isbedel badan baa jira ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid dadka ilowsiye abaartii dhacday foosh xumayd ee adkayd waxa kale oo mahadlo ilaahay aan ugu mahad celinayaa xanuunkii dhibka badnaa ee dadka badan u dhinteen ee shuban biyoodka ahaa inuu isna aad iyo aad hoos ugu dhigay ilaahay baa mahadda leh dadaal weyn oo aan galay kadib ayaa maanta waxaynu maraynaa deeshinada yaallaa inay 70 ka yar yihiin oo iyaguna dadaal xaddaaf sameeyay dawlad deegaanka Ethiopia ayaan iyagana aad ugu mahadnaqayaa oo dadaal weyn ka geysatay si weyn oo garab gashay gurmad weyn oo soo samaysay oo aan la iloobi doonin gurmadkaasi ma aha mid aan iloobi doono haddaan nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan haddaan nahay deegaankan Buuhoolaba abaal baan ugu haynaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamed Umar aad baan ugu mahad celinayaa shaqaalaha halkan ka hawlgalay caafimaad ee dawlad deegaankana aad baan ugu mahad celinayaa runtii waxaan u mahad celinayaa cid kasta ama hay'adaha noqdaan ama dadweynaha reer Buuhool ha noqdaan oo gacan ka geysatay xakamaynta xanuunkan tiimamka jooga iyo shaqaalaha imika halkan jooga way sii joogi doonaan ilaa iyo aanu weyno wax kaysasa way sii joogi doonaan marka hawshaasi dhamaatana biladaanu guddoonsiin doonaa intii ka qayb qaadatay hawshaas aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa dhakhaatiirta waxaa jira meelo badan oo xanuun ka dilaacay imika meesha ugu dambeysay ka dilaacay waa magaalada Woodward imika gurmad weyn baanu ka galnay dhowr casho ka hor waxaan diray daawooyin aad u fara badan iyo team la socdo caafimaad maantana waxa gaadhay dawo kale iyo 5 dhakhtar oo Hargeysa ka yimid iyadana waxaan insha Allah ku dadaali doonaa inaanu xakamayno xanuunka iyagana madaxweynaha Puntland gurmadka kama qayb qaadan markii dhibaatadu jirtay dadka reer Buuhoolana u diiday inuu yimaado booqdo isbitaalka wada weedano shalay waan weydiiyo ma yaba yiraahdeen saasa keentay inaanu iman waxaana wanaagsanayd inaanu iman halkan hadduu iman waayo markii dib ku jiray